بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشا شرفتا يقيمها بدن يا الله بكحرن جنال كان يوتيوب كا اسماعيل عقيلة كسو دبهذا برنامج دينا او الله بهلكان ندين كوسو دغنو غاران برنامجكي وشيكا iyo xigmadeeda oo maanta xiisa gaar ah ximbaarsan sheeka ceenkay ayaan idinkugu soo bandhigi doonaa xigmad noocee ayaad ka faa'iidi doontaan halkan kaga bogo kaliya nala dhamayso muuqaalkan barnaamijkeena ayaan gudagali doonaa hadduu rabbi weyne raali ka noqdo fadlan walaal haddaad nagu cusub tahay subscribe saar janalka si ay dhiirigelin inagu noqoto sidoo kale aan ugu dhiirado waxyaabaha xiisaha badan ee aan isleeyahay alla ilahe way u baahan yihiin ama wax badan ay ka faa'iidi doonaan daawadayaashaada si aan halkan idinkugu soo gudbiyo sidoo kale barnaamijyadan haddaad ka heshay like saar sidoo kale sii share garee muuqaaladeena si ay meelo fogfog u gaaraan sidoo kale noqo qofka koowaad ee hela barnaamijyadeena furo gambaleelka si aad mar walba u hesho barnaamijyada xiisaha badan ee alaaba halkan aan idinkugu soo gudbino maanta sheeko xigmadeeda ay xasaasi tahay ayaan halkan idinkugu soo gudbi doonaa waa sheekadan waxay dhaxmartay dooli iyo libaax libaaxana waad ogtihiin waa boqorka keenta ama durjoogta ka mid yahay maalin maalmaha ka mid ah xilli barqa ay tahay ayaa dooli waxa uu u imaaday libaax oo meel geed har weyn la jooga isla mar ahaantaana ku hurdaya korkiisa ayuu ku badbooday markaas ayuu libaaxii ku soo kacay si dhaqso ah ayuu ku qabtay markiiba dooligii ayaa bilaabay inuu calaacalo isagoo ku cabaadaya mar un day maalin ayaan abaalkaaga ku gudi doonaa libaaxii oo yara qoslaya ayaa wuxuu yiri war ma adiga abaal ii gudi doonaa markaas ayuu iska sii dayay muddo kadib libaaxii ayaa koox duurjoogta ama ugaarsata ah ayaa waxay ku xireen shabaq iyadoo shabaqii markii ay ku xireen uu dooligii meel dheer ka soo arkay isla mar ahaantaana uu u soo cararay libaaxii isagoo xerigii shabaqa lagu xirxiray uu isla markiiba jarjaray sidaas ayuuna ugu soo baxay libaaxii shabaqii libaaxii ayaa wuxuu u rayaaqay qaabka uu dooliga u soo badbaadiyey xigmadda sheekadeena ku jirta ee halkan aan idinkugu soo gudbinayna ayaa waxay tahay qofna ha quursan ma ogid awoodaha u qarsoon ee qofkaasi qof inaad quursato ma fiicna waayo qofkan meel unbuu ku fiican yahay awoodaha u qarsoonse adiguse ma garanaysid laakiin allah subxaana wa tacaala waxaa jirta qof walba hibo ama hibo gaar ah ilaahay subxaana wa tacaala uu ku manaysay xigmadda sheekadeena waa intaas guud ahaan sheekadeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa allah waxaa idiin soo saara halkan idinkaga soo gudbiya anigoo walaalkiin ismaaciil maxamed sidcali inta sheekadan mideed xilaa ay ku kulmi doono waa walaalkiin oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabaadiino nooli kulanti dambe oo xiise leh salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu